casharkeena maanta waxaynu kaga hadlaynaa daily routines. ereyga koowaad waa daily, ka labaadna waa routines. Okay, daily waa maalin kasta ama maalin leh. Routines waxa weeyaan wax soo noqnoqda, waxaad maalin kasta samaysaa. hadduu wax shay routine yahay ama routine waxa weeyaan shay aad mar kasta samayso, sida tusaale ahaan oo kale inaad salaadii kacdo kala daadaysaa. daily routine. Okay, marka waxaanu baranaynaa simple present. Introduction. Hello everyone, welcome back to Ku Hadal English. Every day we wake up, brush our teeth, eat breakfast, go to work or school, and go to bed. Today you'll learn how to describe these daily things, these daily activities in English. Let us begin. Every day maalin kasta we wake up, waynu toosnaa, brush our teeth, ilkaheenaynu cadaynaa, eat breakfast, quraac baynu cunaa, go to work or school, ama shaqadaynu tagnaamay iskuulka, and go to bed, kadibna markaynu labadaas soo dhammayno, and go to bed, kadibna sariirtaynu tagnaa. Today, maanta, you'll learn how to describe these daily activities. maanta waxaad baran doontaa sida loo qeexo describe, sida loo qeexo these kuwan daily activities, waxyaabahan aad activities, waxyaabaha aad samaysaa leeyahay activities, waxyaabahan aad maalintii samayso in English baad ku baranaysa. Let us begin. aynu bilaabano. Wake up waa toosid. haddaan ku dhahdo wake up waa toos. Brush teeth, caday ilkaha. Brush waa cadayd, teeth waa ilko, marka brush teeth waa cadayd ilkaha. Breakfast quraac, work shaqo, school waa wada garanaysan way school, sleep hurdo. Wake up toos, get up kac, brush my teeth caday ilkaha ama cadayda ilkahayga. Brush my teeth, cadayda. My waa waxaad adigu leedahay ama waxaan anigu leeyahay. My waa wax adiga kuu gaara. My brush my teeth, cadayda ilkahayga. Wash my face, maydhida wejigayga. Wash my face. ama amar oo kale noqon karta, waxaad odhan kartaa wash my face, brush my teeth, caday ilkahayga. saana waa loo dhigi karaa. Wash my face, maydh wejigayga. Take a shower, qubayso ama maydho. Get dressed, haddaad qof ku tahay get dressed, waxaad u jeedaa dhar xidho. Eat breakfast, cunto cun. Breakfast waa quraac, cunto yaan odhanay waxa weeye quraacun. Eat breakfast, cun quraac ama quraacun. marka let me read one more time. Wake up, get up, brush my teeth, wash my face, take a shower, get dressed, eat breakfast. Go to school, schoolka tag ama schoolka aad. Go to work, shaqada aad. Study marka study waa marka wax akhrisanayso kala library-ga joogta ayaa leeyahay. ayaad odhan kartaa I'm studying, or waxaad odhan kartaa sidoo kale I study every day. marka waa akhrisada way markaad meel fadhiisatad aad wax akhriyayso kala leeyahay study wax baro. amar oo kale qofkaad ku siin kartaa study baad odhan kartaa qofka study. marka taa macnaheedu waxa weeye wax akhriso kale ka dhigan tahay ama dadaal oo kale meel fadhiiso dadna buugaaga intaad la soo kala baxdo akhri. Eat lunch, qada cun. Eat dinner, cun casho. Go home, guriga aad ama guriga tag. Sleep, seexasho ama seexo. Okay, marka ereyadani mararka qaar amar ahaan baad u dhigi kartaa, mararka qaarna daadaa isku qeexi kara. marka dhammaantood isagoo adigoo isticmaalaya oo ka hadlaya ayaynu u tegaynaa. Okay, wake up, toss, brush my teeth,
cadayashada ilkahayga, eat breakfast, quraacun, go to school, aad dugsi. Repeat after me. Study, eat lunch, eat dinner, dinner waa cashada, cun casho, sleep. Useful sentences. Haddaba waxaa jira wax la yidhaha simple present tense. Simple present tense-ka waxaa lagaga hadlaa wax maalin kasta aynu samayno. Things that we do every day. I wake up at 6. I wake up at 6. maalin kasta qofku 6 toosaa soo maha. I wake up at 6. waxaan toosaa 6. I brush my teeth every morning. maalin kasta ilkahaygaan cadaya. I eat breakfast at 7. I eat breakfast at 7. quraacda 7 cunaa. maalin kastaad ka hadlaysaa. I go to school at 8. iskuulka 8 ayaan tagaa. markaa iskuulka maalin kasta ayaa tagtaa. waanigay kuri waxa duu routine yahay. routine waa shay aad mar kasta samayso. I study English every day. Englishta maalin kasta waan bartaa ama waan akhristaa. I study English every day. I eat dinner with my family. I eat dinner with my family. qoyskayga ayaan la cunaa cashada ama la casheeya. I go to bed at 10. waxaan sariirta tagaa ama aan seexashada isu diyaariyaa 10. I go to bed at 10. sariirtayda 10 ayaan tagaa. Okay, let me read one more time. Read these sentences aloud. Whenever you read these sentences aloud, your English improves. That gives you confidence and it helps you speak English. Okay. I wake up at 6. I eat breakfast. I brush my teeth every morning. I eat breakfast at 7. I go to school at 8. I study English every day. I eat dinner with my family. I go to bed. I go to bed at 10. Wake up. Wake up waa waking up waa toosid ama wake up waa toosid baa odhan kartaa. Breakfast waa quraac. Brush waa cadayd. Teeth waa ilko. Morning waa subax. Morning waa subax. Eat waa inaad cunid weeyaan. Study waa akhrisasho ama akhrisasho. ereyga ugu dhow Soomaaliga waa akhrisasho ama qofku inuu meel fadhiisto deedna study gareeyo waa akhrisasho. Day waa maalin. Bed waa sariir. Dinner waa casho. Family waa qoys. My haddaad doonayso waxaad leedahay bay ku tusaysaa. My waxayga. wax iyo waxaygu way kala duwan soo maha. wax waa shay. waxayguna waa shay aad adigu leedahay ama shay aan anigu leeyahay. waxayga haddana waa shay aan anigu leeyahay. marka adigu waxaaga markaad ka hadlayso tusaale ahaan oo kale haddaad ka hadlayso guri waxaad oranaysaa aad adigu guriga leedahay waxaad oran kartaa my house. My house gurigeyga. anu haddaan gurigeyga ka hadlayo waxaan oran karaa my house. Okay, grammar. We use this present simple to talk about habits and routines. Habits and routines. Habit waa caado. Habits waa caadooyin. Routine waxa weeyaan markaad asta ka reebto. astu jamac bay ka dhigtaa. Routine waa waxaad samayso. Routinesna waa waxyaabaad markasta samayso. Routines waxyaabaad markasta samayso. Okay? Simple present tense waxa loo isticmaalaa waxaad markasta samayso. I wake up early. goor horaan kacaa. You study English. English taad akhrisataa ama barataa. We eat breakfast every morning. maalin kasta we waa inaga. You waa adiga. I waa aniga. We eat breakfast every morning. maalin kasta quraac baynu cunaa. subax kasta morning waa subax. subax kasta quraac ayaynu cunaa. They go to school. They go to school. ayaga they waa ayaga. They waa ayaga. Schoolkay tagaan. They go to school. Schoolkay tagaan. marka kuwaasi waxa weeyaan waxaan ka soo hadalay
I, you, we, they. ficilki waa ke study, wake up, eat, go to school. haddaba waxaynu arkaynaa sida ay he iyo she iyo it uga duwan yihiin. markaad simple present ka isticmaalayso, when the subject is he, she, or it, add s to the most verbs. Add s to the verbs, most verbs. Okay. He wakes up at 6. imaka wake up ay ahayd soomaha. I wake up baad odhan jirtay. waxaad odhanaysaa I wake up. but markaad qof kale ka hadlayso, he waa isage. He wakes up at 6. waxaad odhanaysaa s baad ku daraysaa. He wakes up at 6. 6 kacaa. He eats breakfast at home. like eat bay ahayd, imaka eats baan ka dhignaa. quraacda gurigu ku cuna. He eats breakfast at home. She studies every day. remember waxay ahayd study. imaka studies. She studies every day. She studies every day. imaka waxaynu ku daray s baynu ku daray. markaad s ku dartay ereygu way ku dhamaadana had iyo jeer waxa lagu daraa ies. marka studies bay noqotaa. She studies every day. She goes to school by bus. She goes to school by bus. go bay ahayd. aduu markaad iska hadlaysa ma odhanaysid I goes to. taasi waa khalad. waxaad odhanaysaa I go to school by bus. by bus. laakiin haddaad ayada ka hadlaysa waxaad odhanaysaa amaad isaga ka hadlaysa amaad it ka hadlaysa. idoo had iyo jeer xayawaanka loo isticmaalo waxaad odhanaysaa she goes to school by bus. He goes to school by bus. Tip: don't say he wake up. Say he wakes up. marka don't say she wakes up. She wake up. Say she wakes up. Okay. Conversation. What time do you wake up? What time do you wake up? goormaad kacdaa? Axmed baa odhanaya. Aamina waxay odhanaysaa I wake up at 6:30. 6:15 ayaan kacaa. Axmed baa odhanaya what do you do after that? markaa kadib maxaad samaysaa? Aamina ayaa odhanaysaa I brush my teeth and eat breakfast. waan cadaydaa, ilkahaygaan cadayaa, dabeedna waxaan cunaa quraac. Do you study English every day? Axmed wuxuu odhanayaa maalin kasta Englishta maad barataa. Yes, I study English. or waxay odhanaysaa yes I do. haa waan sameeyaa. Reading practice. Read aloud. Reading practice. Reading waa akhris. Practice waa ku celcelin. Read aloud waa inaad ku dhawaaqdaad si go-aanaad ma garanaysaa si silent u akhrin. waa inaad sare u akhrida. Read aloud. sare u akhri. My name is Amina. I wake up at 6 every morning. I brush my teeth and wash my face. I eat breakfast with my family. Then I go to school. In the evening, I do my homework. I go to bed at 10. marka Amina ayaa waxay samaysay inoo sheegaysa iyadoo simple present isticmaalaysa. waxay odhanaysaa Amina, my name is Amina. magacaygu waa Amina. I wake up at 6 every morning. maalin kasta waxaan kacaa 6 subaxnimo. I brush my teeth and wash my face. ilkahaygaan cadayaa wajigana waan maydhaa. I eat breakfast with my family. qoyskayga ayaan la quraacdaa. Then I go to school. kadib schoolkan taga. In the evening waa fiidka. I do my homework. homeworkaygaan sameeya. I go to bed at 10. 10 ayaan sariirta taga. Okay, speaking practice. tan adiga ayaa samaynaya. Pause the video and answer these questions. What time do you wake up? tan markaa tusaalaan kuu sinay example answer. jawaab tusaale I wake up at 6. What time do you wake up? I wake up at 6. What do you eat for breakfast? waxaad quraacda cuntada no sheegi doona. Do you go to school or work? Do you go to school or work? my school baa tagtaa mise shaqo? What do you do in the evening? fiidkii maxaad samaysaa?
What time do you go to bed? goormaad sariirta tagtaa? aad iyo aad ayaa mahadsantiin. casharkan waxaan rajeynayaa inuu ku Englishta ka caawinayo haddii aad rabto inaad Englishta barato. haddii aad la socoto channelka waxyaabo badan buu ka caawin doonaa. subscribe, like, aad iyo aadna dhammaantiin waa u mahadsantiin. Englishtuna waa dadaal sida waxyaabaha kale.